Assalaamu calaykum. Waxaan halkan idinkaga soo jeedin doonaa mowduuc. Mowduuceena maanta wuxuu ku qotamaa maareynta waqtiga. Sidee aad u maareyn lahayd waqtigaaga? Waxaan ognahay in ay maalintii ka kooban tahay 24 saacadood oo keliya. Waqtigu waa wax dhammaad leh, adiga ayayna ku jirtaa hadba sida aad uga faa'iidaysan lahayd. Haddii aad lumisid lacag, waxaa laga yaabaa inay ku soo marto fursad aad dib ugu heli kartid lacagtii kaa luntay. Laakiin lama soo celin karo saacad khasaartay, inkastoo aanan saacad ku soo kordhin karin maalinta. Mowduucan wuxuu kaa caawinayaa sida aad faham buuxa uga yeelan lahayd muhiimadda ay leedahay inaad maareyso waqtiga, iyo sida maareynta waqtiga ay kaaga caawin karto helidda waqti dheeraad ah oo aad waxyaabaha kale ku qabsato. Intaan u guda gelin mowduuceena maanta, fadlan daawo batoonka guduudan si aad subscribe u saarto channelka. Sidoo kale waxaad taabataa kambaleelka sida u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawanaya mowduucan soo gelino mar kasta. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Waqtigu waa mid ka mid ah mucjisooyinka oo Allah subxaanahu wa tacaala nagu manaystay, isla markaasna aad ka faa'iidaysatid aad ka miro dhalinaysid. Waqtigu wuxuu u qaybsamaa 3 qaybood: waqti tegay, waqti taagan, iyo waqti soo socda. Kan tegay waaba tegay, waa ku dhaafay, balse midka taagan haddii aad ka faa'iidaysato waxaad saameyn ku yeelanaysaa kan soo socda. Mar haddii aad taqaanid sida loo maareeyo waqtiga, waxaad dareemaysaa faa'iidooyin badan oo kaaga imaanaya maareynta waqtiga. Waxaan maanta halkan kugu soo jeedin doonaa 7 qodob oo aad ka faa'iidi doontid haddii aad maareysid waqtigaaga. Qodobka koowaad: inaad ku qabato hawl badan waqti kooban. Haddii aad leedahay xirfad waqti maareyn ah, waxaad awood u yeelanaysaa in waqti yar ku samaysid hawlo badan adoon ku bixin juhdi badan. Inaad hawsha kuugu mudnaanta badan waqti siisidna waxay fursad u tahay qabashada arrimo badan. Haddii aad heshid 1 saac oo dheeri ah oo aad ku qaban karto hawl wax soo saar leh, waxaad helaysaa 312 saacadood oo wax soo saar leh sanadkii. Qodobka labaad: shaqo dhammaystiran iyo nolol micno weyn kuu leh. Wax ka niyad jab badan ma lahan haddii maalintii oo dhan qof mashquulsan tahay, haddana aadan ahayn qof wax soo saar leh. Dareenka laga heli karo hawsha dhammaystiran waxay dhiirigelin ku siinaysaa shaqada. Marka aad joogtid gurigaaga, waxay kugu fududaynaysaa inaad nasato oo waqtigaaga aad ku raaxaysato. Haddii aad si hoose ula socotid sida aad waqtigaaga u isticmaashid, waxaad helaysaa waqti aad ku qabato waxyaabaha ay naftaada jeceshahay. Qodobka saddexaad: go'aan qaadasho la'aantaada oo yaraata. Walwalka aad ka walwashid inaad dooratay doorasho wanaagsan iyo in kale ayaa ah arrin waqti badan cunta. Waxaa dabiici ah in go'aanada waaweyn ay qaataan waqti, laakiin go'aanada yaryar aad qaadato maalin walba ayaa sidoo kale kaa cuni kara waqti badan. Garashada waxaad rabtid inaad samaysid waxay kuu badbaadin kartaa waqti badan inta aad maalin walba waqti badan ku dhaygaagi lahayd hawsha kuu taala iyo waxa aad qaban lahayd. Isku day inaad qorshe joogto ah samaysatid maalin walba. Qodobka afraad: inaad si dhaqso ah ku gaartid hamigaaga. Dad badan ayaa leh hiigsi iyo hami weyn, hase yeeshee faham la'aanta ka haysata muhiimadda ay leedahay in la maareeyo waqtiga ayaa ka hortaagan gaaridda hamigooga. Tusaale, dabcan hamigaaga waxaa ka mid ah inaad bilowdid nolol wanaagsan, laakiin waxaad heli karin waqti aad ku aadid jiimka. Waxaa suurtagal ah in waqtiga aad u baahan tahay aad haysatid, laakiin aadan arki karin waxa kaliya aad u baahan tahay. Waa inaad waqtigaas heshid si aad u gaartid hamigaaga. Qodobka shanaad: kalsoonidaada oo kor u kacda. Maareynta waqtiga waa arrin kor u qaadi karta kalsoonidaada. Waxaad awood u yeelanaysaa in naftaada siiso daryeel. Haddii aad isdaryeeshidna waxaad dareemaysaa ama u ekaanaysaa qof noloshu is afkarteen, isla markaana waxaad si joogto ah u helaysaa wax kiciya kalsoonidaada mar walba oo aad dareentid inaad hawl soo afjartay. Qodobka lixaad: waqti badan oo kuu soo hara si aad u samaysid waxyaabo aad jeceshahay. Waxa aad ka fikirtid waqtiga badan ee kugu qaadato inaad seexatid, shaqaysatid, cuntaysid, socoto ama is nadiifiso. Waxaa kuu soo haraya 4 saacadood maalin walba oo aad
ku qaban kartid waxyaabaha aad jeceshahay. Barashada maareynta waqtiga waxay kuu sahlaysaa in aad hesho fursado badan oo aad u shaqaysato kobacaaga shaqsi ahaaneed. Qodobka 7. Inaad iska dhaafto bariyeenta. Inaad iska dhaafto bariyeenta, bari ayaan qaban, waxaan mar kale ayay ku fiican yihiin, maadadan akhriskeeda mar kale ayay ku fiican yihiin. Ogow waqtiga aad joogto haddaad ka faa'iidaysato waxaad saameyn ku yeelanaysaa waqtiga soo socda. Sidii mawduuca bilowgiisii aan kusoo sheegnay, waqtiga aad joogtid ka faa'iidayso si aad waqtiga u soo socda aad saameyn ugu yeelatid. Waxaa mawduuca idiin soo jeedinayay anigoo ah Mastar Kaahiye. Waxaa sidoo kale uga hambalyeynaya asxaabta ku xiran janaalka in muddo 3 bilood kadib aan maanta video soo geliyay, isla markaana waqtiyada dambe ay dabcan ay sii noqon doonaan barnaamijyada tixane. Waxaan idinka raali gelinayaa muddada 3 bilood ku dhawaad aan ka maqnaa kanaalka. mid sidoo kale asxaabta waxaan ka codsanayaa inaad badisaan wax akhriska si aad u noqoto baare dhinaca noloshaada. Marka dadaal wacan videogeena xiga intaas ayaan idinka tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.